وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما شعب وينها دول دقان سوماليا إثيوبيا iyo lama shacbi weynaha Soomaaliyeed oo waxaan ka tacsiinayaa geerida iyo dhimashada xasuuqa ee ka dhacday gobolka Oromiya. dadka Soomaaliyeed ma ka tacsiinayaa gaar ahaan dowlad deegaanka iyo shacbiga dowlad deegaanka degan. arrintaasi waa arrin foolxun oo aad u foolxun oo dhibaato badan. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka masaakiinta ee Oromiya ee ku dhex nool dhan kasta joogaan yaan waxba loo geysanin, ficilka ku dhaqaaqeen oo kale yaan la samaynin. arrinta wada hadal dowlad deegaanka iyo waxa ka wada hadli doona iyo dadka Soomaaliyeed, laakiin yaan dadka masaakiinta ee guryaheeda jooga ee waashmaanada ee shaqaalaha ee meelahan jooga iyo dowlad deegaanka masaakiinta yaan sidoo kale waxba loo geysanin. arrintaa aad iyo aad baan uga xunnahay, ugana digaynaa inaanay taasoo kale dhicin oo waxa ay ku dhaqaaqeen oo kale aan la samaynin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore waxaan leeyahay inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay ha naxariisto intii halkaa ku dhimatay oo jannada firdawsa ka waraabiyo, inta dhaawacana ilaahay ha inoo bogsiiyo. fidnadana waxaan leeyahay cid kastoo qusayso oo dawlad iyo oday iyo ganacsatada la soo afjaro oo halkaa lagu xidho fidnada ka dhacday halkaas ee dadka ku dhinteen walaalaha ee isku deegaanka ee deriska. waxaan leeyahay balaaya baa la yidhi daan la qabto daba la qabto mala daan la qabto leedahay. waxaan leeyahay maanta laga hortago dhibtaa jirta. waxaana dowlad deegaanka iyo dhammaan Soomaalida iyo Oromiya faraya in halkaa lagu joojiyo wixii dhib dhacay. intii naga dhibatayna ilaahay baan uga baryaynaa inuu jannada geeyo, inta dhaawacana ilaahay noo shafeeyo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. dadkii ku xasuuqmay amba ku leeday shaqaaqadii ka dhacday maalintii dhaweyto Itoobiya, waxaan leeyahay dadkii dhintay Allah ha u naxariisto, eheladoodiina ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo, innaga dhammaanteedna samir iyo iimaan Allah inaga siiyo. wixii dhaawacana waxaan leeyahay ilaahay ha shaafiyo, ilaahay ha u boogadhayo, ehelkoodiina samir iyo iimaan cawad khayr qaba Allah ha siiyo, iyagana ilaahay naxariis janno ha siiyo. dhammaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaalida oo dhanba hadday ahaayeen dad ganacsatada dadka dhintay iyo dad kala ahaayeenba oo safaraba, dhammaan dadkii geeridaas ku dhacday iyo helidoodiiba waanu ka taxsiyadeynaa. taxsi baanu u diraynaa. samir iyo iimaan alla dhammaanteen aynaga siiyo, gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaalida ayaanu ka siinaynaa. waxaanu leenahay qoomiyadda Oromada colaadda ha gaadhsiinina Soomaali oo dhan iyo Oromo. colaadda Itoobiya iyo Soomaali waa tin la soo afjaray, ururkaysan soo afjaray. colaadda kama dhaxaysa imaka way xidhantay. waxaan leenahay Oromiyo dadka beecmisrigeeda dhex maraya iyo dadka kale ka mid ah deegaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya midnaba yaan lagu khaldamina ha laga noqdo. go'aanka lagu leeyahay dadkii ay ka dhinteen waanu ka taxsiyadeynaa. dowladana waan ka taxsiinaa, Soomaaliya oo dhan waan ka taxsiyadeynaa. marka hore dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta joogto iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen dadka dhintay geerida naxdinta leh dhammaantood marka hore waxaan ka taxsiinaa waxaan leenahay ilaahay dhammaantiin samir iyo iimaan ha naga siiyo. waa geeri naxdin leh runtii. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waa geeri aad iyo aad u naxdin leh. dhammaan meel kasta joogto bulshooyinka Soomaaliyeed iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo qoysaskii iyo qaraabadii iyo eheladii ay ka geeriyoodeenba waxaanu ka taxsiinay taxsi tiiraanye leh aan ka taxsiinaynaa. waxaanu leenahay ilaahay samir iyo iimaan hay naga siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. halkan waxaan uga diraynaa taasi dhammaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaali weynta, gaar ahaan dadka ka soo jeeda gobolada Soomaaliland ee ku geeriyooday
halka deegaanka Oromiya dagaalka ka dhacay iyo xasuuqa ka dhacay waa arrin fool xun waxaan leenahay hal laga digtoonaado in dhinaca kalena argoosi ka dhaco dadka Soomaalida ah ama deegaanka dowladda Soomaalida ha ahaadaan ama gobolada kale Soomaaliland iyo Soomaaliya ha ahaadaan waxaan ku boorinayaa anigu tala ahaan ku soo jeedinaynaa sidii salaadiintu ba sheegay aniga odayaashu dadka masaakiinta ah ku dhex nool inaanay ka argoosan inaanay falal maartay ku sameeyeen argoosiya dadka meeshaas lagu xasuuqay Oromiya waxaan leenahay dowladda deegaanka Oromiya dadka maamulaya inay maartay dejiyaan dadkooda falalka caynkaas oo kale aan ka hortagaan waxay keenaysaa haddii ay sii socoto arrintaasi in kuwa halkan jooga iyo xagga jooga deegaanka kale ku dhex nool iyagana laga argoosto si ay arrintaas u dhicin oo loo yareeyo khasaaraha ama dhibaatada imanaysa waa in deegaanada ay ka soo kala jeedaan dadkaas la dejiyo oo maartay laga hortago inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaan tacsiyo u dirayaa dawladda deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya ayaan tacsiyo u dirayaa oo anaga dirayaa xasuuqa halka ka dhacay gobolka Oromiya ee dadka lagu laayay mar labaadka Soomaaliya oo dhammaan u dirayaa waxaan leeyahay waxa way dhaceen ilaahay intii dhimatayna ha u naxariisto inta dambe ee dhaawacana ilaahay ha u fududeeyo ummadda dhan ku nool waxaan kale u sheegaynaa deegaanka Oromada arrimaha noocaas ee dhacaya arrimo loo dulqaadan karo maahay waa in arrimahaas xal lagu gaaro xal nabadeed lagu gaaro oo nabad lagu dhaliyo marka xasaan taas ma tacsiyo gadirina waana nacti waxaan ugu baaqaynaana in xal nabadeed lagu dayo oo amniga lagu sugo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.